some people they don't have Don't be shy. Okay? Don't be shy. waxa uu la'yahay isla markaana naafo uu ka yahay aragga laakiin taasi kama aysan horjoogsan in uu muujiyo isla markaana uu qayb ka noqdo doorka uu ku leeyahay bulshada macallin dalmar cadow maalin waxa uu ka tirsan yahay iskuulka aflax international academy oo ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir waa macallin da'yar ah oo aad ugu wanaagsan gudbinta waxa uu halkan yimaadaa maalin walba 1 duhurnimo ilaa iyo 5 galabnimo waxa uu bixiyaa xiisado kala duwan haddaba sidee ayay u arkaan ardayda uu waxbaro macallin dalmar ما شاء الله waxaa joogaan macallimiin fara badan oo qaasatan ka ah Ustaad Dalmar Cadow Maalin waxaan ku arkay iskuulkan asigoo ah qof yaani oo maanta wax qabsan karo qabsashaalkiisa ma ahan yaani inuu sabuurad heli karo laakiin maskaxda ahaantiis maanta uu noqon karaa qof macallin ah oo ardayda oo faa'iido badan u bixin karo wallahi aad ay u fiican yahay wada sheekaysi hadaa la dhaho wada sheekaysiga ardayda sida ugu qaadanayo discussionada sida uu qaadanayo presentationka sida uu qayb galayo حتى maalinta sabtida iskuulkan waxa ogaan xeerkiisa inay macallimiin wax soo jeediyaan maalintaas oo soo jeedina ma sha Allah qof albatitionkiisa wuxuu siiyaa Ustaad Dalmar maxaa yeelay qof araga la awaay ma sha Allah ardaydana way ku kalsoon yihiin waana macallin mar walba motivation iyo dhiirigelin wato ardaydan dhiirigeliye waana macallin markuu xiisada ku jiro barbaability fiican wata mar waa macallin fani ah marna macallin oo wax ku baraayo si exactly wax uu ku baraa qaab professional ah oo dadka wax u baraa The question that we want to discuss about how we can develop macallin dalmar waxa uu nuurka indhihiisa ku waayay xanuunka jadeecada oo uu ku dhacay isagoo caruur ah waxaana indhihiisa uu waayay isagoo jira da'aadda 3 sano haddaba goormuu bilaabay xirfadiisa macallinnimo goorta ku soo biiray xirfadda macallinnimada waa 2017 markaan wadanka dib u soo laabtay bishii 11aad 2017 aan ku soo biiray waxaana macallin iskuulka u horeeyay aan ka noqday aflax international academy oo hadda bartani aan macallinka ka ahay aan run ahaantii u mahadcelinayo maamulka guud ee iskuulka aflax international academy oo maamulka ka yahay al-Ustaad Ismaaciil Sheekh Sidow maamulku xigeen oo ka yahay al-Ustaad Maxamed Aadan Jeele oo ah run ahaantii labada macallin ama maamul igu soo dhaweysay kalgacayl ah walaalnimo ah igu soo dhaweeyeen in aan maanta bari karo ama dad bulsho wax fahansiin karayo in ay igu soo dhaweeyeen sida ila dhaqmin si dadka caadiga oo kale ah aan madacinayaa xilligaas ayaan ku soo biiray macallinimada ardayda macallin dalmar cadow maalin waxay hadda ay ku jiraan isla markaana ay sameynayaan waqtigii wada sheekaysiga ee luqadda Ingiriiska waqtigan waxa loogu talagalay in ardayda loogu tababaro inay si awood ugu hadlaan luqadan hadda waxa uu isku diyaarinayaa in uu guto isla markaana uu maanta uu soo bixiyo duruustii ugu talagalay ardayda macallin dalmar waxa uu hor taagan yahay muraayadda labiska waxaana uu kalsooni weyn uu ku qabaa in uu maanta iskuulka tago isagoo diyaarsan waa macallin niyadiisu ay aad u wanaagsan tahay waxa uu isku eegayaa muraayadda sida isagoo haysta aragiisa culayska iyo dhibaatada ugu weyn ee haysata macallin dalmar ayaa ah in uu gooyo isla markaana uu maro laamigan maxaa yeelay waxaa jira fogaan u dhaxeeya gurigiisa iyo iskuulka masaafada iyo caqabadaha jiro waayo way dhacdaa inta badan anigoo laga rabo iskuulka inaan soo gaaro 2 duhurnimo ama 8 saac in aan soo galo ama marar qaar inta badan waxaan soo galaa 1 duhurnimo soo galaa waa in aad soo laamigaas kaliya waxay u qaadanaysaa inaad taagnaado ku dhawaad around 10 minutes inaad taagnaado ama 5 minutes ama 15 minutes inaad taagnaado waayo gabaaridii ayaa zaid ciriir u ah wadada jaamac ka jiro waxa kale oo dadka laftirkooda ma fahansano in qofkani oo araga la yahay oo ushani ay tahay muhiim marka muhiim waxa dadka inay ogaadaan ushani maxay ka caawisaa
soomaalida inta badan waxaa waaye adigoo meesha taagana lagu imaanayaa lacagaa lagu taagayaa qofka lacagta markuu kuu taagan waa inaad dhahi kartid walaal lacag uma baahna waddada goysiye ardayda uu waxbaro waa kuwa haysta aragga laakiin macalin dalmar isagu waxba ma arko haddaba sidee ayuu wax u baraa ardayda aniga waxaan inta badan shaqada aan qabto ay u badan tahay in ardada aniga aan arajigareeyo oo isku aadiyo siyato luqadda siday uga hadli lahaayeen kuna dhiirigeliyo luqadda in ay ku hadli karayaan inta badan waxaan ardada aada uga caawiyaa dhanka luqadda ku hadalka si ardaygaas uu isku soo saaro maadaama macalinka kale oo gudaha wax walba oo ka soo dhiso anigana waa u dhammaystiraa dalmar cadow maalin waxa uu ka mid yahay macallimiinta iskuulka aflax international academy waa macallin naafo ka ah aragga laakiin abaabinta iyo waxbarashada ubadka soomaaliyeed waxa uu la mid yahay macallimiinta kale ee caadiga ah macallin dalmar waxa uu leeyahay hami iyo hansare oo ku aadan inuu soo saaro ubad soomaaliyeed cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid rashka xarunta ugu weyn ee iskuulka aflax muqdisho cable tv magaalada muqdisho